السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن هبين وناكسن مeel kasto joogtaan ku soo dhawaada xubinta gaarka oo aan ugu tala galnay xidigaha isku soo haray abaalmarinta the best isla markaana laga waayay markii ugu horeysay Messi muddo ku dhawaad طبعا daawadayaal sidaan ognahay abaalmarintan kuma timaado falanqayn ama muxuu garoonka ka sameeyay xidigan hadii ay tahay bandhig ama muxuu garoonka ka sameeyay Messi oo ku jiri lahaa ama uu ku jiri lahaa saddexda xidig ee ugu dambeysay abaalmarinta u tartamaysa koobka adduunka marka la fiiriyo waa iska caadi saddexda xidig ee haatan isu soo haray mid kaliya bandhig wanaagsan ka sameeyay koobka adduunka labada kale waana Modric labada kalena no Ronaldo no Salah Messi marka laga hadlayo horyaal ahaan aad buu u fiicnaa marka ay tahay horyaalka dalkiisa koobka boqorka sidoo kale si wanaagsan ayuu u ciyaaray Champions League marka laga hadlayo xitaa kulankii ilaa iyo 8 laga soo gaaro kulankii Roma waa wanaagsanaa marka laga tago kulankii Roma oo ay ku hartay kooxdiisa halka hadaba waxa isweydiin mudan maxaa looga reebay saddexda xidig ugu dambeysay tartankan sababta ugu weyn ee looga reebay ayaa waxay tahay hal arin waana mid sida rasmi ah loogu qiimeeyo abaalmarinta the best oo ah guud ahaan marka la eego aragtida guud ama hadalhaynta dadka maxay dadka ka waramayaan Salah sanad kaliya ayuu salama filaan ku soo galay bandhig cajiib ayuu sameeyay dadku ay jeclaadeen runtii si weyn ayaa loo hadalhayay si lamada Modric marka aragtay bandhig wanaagsan ayuu koob adduunka sameeyay sidoo kale kooxdiisa wuxuu kula guuleystay Champions League isaguna si weyn ayaa loo hadalhayay waa ka haatan isagu kamid ah xidigaha isugu soo haray Ronaldo marka laga hadlayo isagu Champions League marka deegtid goolkii dhabalka ah Champions League kula guuleystay kooxdiisa iyo sidoo kale waxa sidoo kale caawisay marka la eego wareegistii Juventus uu wareegay runtii door weyn ayuu ku lahayd marka la eego in uu heerkan soo gaaro taban maadaama ay ahayd si weyn hadalayntu ay u sii kordhaysay laakiin Messi marka laga hadlayo koobka adduunka dib 2 bil ku dhawaad hawada ayuu ka maqnaa waana waxyaabaha si weyn u dhaawacay marka laga hadlayo warbaahinta hadaleynteeda iyo waliba muuqaalahan kama uusan muuqan sida daraadeed waa waxa ay keentay saddexda ugu dambaysa uu ka mid noqon waayo waana taamida rasmiga ee la yiraahdo kubad ahaan laguma qiimeeyo jaa'isadan laakiin hadii lagu qiimeyn lahaa kubad ahaan waxay noqon lahayd ama ugu yaraan saddexda xidig oo ka mid noqon lahaa sababta horyaalka dalkiisa uu ku guuleystay ugu yaraan Champions League-na meel 8 uu ku soo gaaray laakiin marka laga hadlayo natiijadan ama tani maaha mid lagu qiimeeyo kubadda muxuu ka sameeyay laakiin marka degtid guud ahaan waxa laga fiiriyaa hadalhaynta dadku maxay hadalayaan dadka maxaa ka muuqda waana Ronaldo wax u fiican marka laga hadlayo sababtoo ah wareegistii Juventus si weyn bay u caawisay marka laga hadlayo arinta daawadayaal inaad fahamteen ayaa rajaynaya xubintan inta ayaan ku joojinayna insha Allah xubna kale inta ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo halkan waa dunida ciyaaraha tiyo